waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal qoys markii la yidhaahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweenay dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ahoo xagxagsan howlaha qeexan ee ay bulshadu ku qaybisana ka soo dhalaali karta sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweeneyda tilmaamahaas leh ayaa barbaarku sida baari xoolaad meel walba uga raadin jiray toddobaado ama bil idil ayuu reerahooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray habeena idil ayuu sida awr banjooga ilaa ciilsira ku dib jiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabarh wanaagsan loogu farmuuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu odhan jiray in dhawaaraba lama aragoo wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegey heliya ama baadigafyaaba inantii loo maleeyo inay jabano kabto noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayoo tamadin jiray maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay dhowr nin oo gebi jiray ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadaha ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahaydoo markaas naagadoon ahaa ama ka dhab ma ahayne ku dhaga hadlaayey dhalinyaro habeen gudkoodu batay oo xigaal ama ood wadaag ay miduun ahaayeen gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa marahayga ugu da'weyn tixuu tiriyey gabyaa waagiisii aad u caanbaxay oo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa degaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey isla markaasna ahaa colwadeen ammaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaaya isagu uu haliyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo carruurna leh ayaa tixgaaban oo ay weliyaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacaayo tixdaas oo halkudhegeedu yahay waa ka buubsanahay wuxuu u horraysiiyey 2 meelisoo dhalanka oogada ku saabsan 2 meelisoo si dadban uu ugu ammaanayo gabarh uu dhalay oo baydan afcad la oran jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda oo kale laan qaysaraana loo malayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana midaan bogan itaalkeeda aan laan basiiruu ekayn waa ka buugsanahay gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo waxaa ka mid ah kabaha oo waayihiisii aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku yidhaahdana ku jawaabta oo iima muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaco gaashaysani ay xali la tagtay marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogol-aantu ay isaga mid yihiin dabeecaddaasoo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtay oo waxay qurux ka qabto dhebi lagu magacaabi jiray marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha
ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo adeegeedu aanu marnaba badan bulaalinna. marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweeneyda uu dusha sare ka qorxoon yahay hoostusa ay maran tahayoo kaskaas iyo gogol lagu dangiigsadaa toonii aanay oolin. marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caanatoona isku mar iyo isku meel kagama dhergi karee wuxuu diidayaa haweeneyda aan marba xoogaa yaroo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. markaas baa waxaa mahmaadoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heeli tiri walaal la-aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la-aan baa dhaanta. wuxuu yidhi Faarax, kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xaraabbaha la tegey waa ka buubsanahay. bootaanta tii seexatoo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxoo waa ka buubsanahay. midii caana biitaamisoy biista maqasheedu adigeeda biid kuma kordhoo waa ka buubsanahay. aqal bilicila waxaa iiga roon buul astaawilane burna midaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay. caanaha idday kama bogto oo baray gugaygii hadda badaq midaan ii shubayn waa ka buubsanahay. marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa kolka uu sudcaalada ku maqan yahay haweeneyda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor habeenbara markuu soo dhacana u weyda waxa ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilshadis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweeney kasta oo baxaalle ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. meelisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexana waxaa ka mid ahaa anoo bila maqnaan jiray midaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanahay. nin baruurta jecel baan ahay oo weydu waa belowe naag aan kubiya barir ahayn waa ka buubsanahay. waxaa haddaba ku noqosho leh afartan meelis ee laba ay tixda ugu horrayso labana ay ugu dambayso, kuwaasoo marahayga faahfaahin dheeraada u baahan. qaar ka mid ah weliyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la odhan jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tiri, maxaad aabbow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobtay? labada habloodna suuban baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay ka ahayd dhallinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. si kastaba ha ahaatee afcad intuu gabadhii caraysnayd soo dhowaystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yidhi, adigu suuban loo og baa tahay, oo uu ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn. labada meelis ee gabayga ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baan ahay iyagana waxay weliyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad u horseeday. waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin, wuxuuna ku xifaalaynayay bay odhan jireen haweenay u dhaxday gabyaa kale oo ay isaga isu gebyi jireen, degaan wadaagna ay ahaayeen. aan haddaba gabaygii afcad idin raaciyo gabay allaha u naxariistay uu lahaa aw yuusuf cali xilsi oo aw yuusuf barre loo yiqiin. galbeedka dhulka soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa. lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayahanadii xilligiisa kuwii ugu cadcaddaa midkood. aw yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhextaalkiisu yahay guuraan kala aado oo 1937 aanu ka barannay allaha u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka soomaaliyeed maxamed xaaji xuseen oo sheeka xariis ku magac dheera.
waa gabay sida la yidhaahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaahsanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha wan wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula carari jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray wuxuu aw yuusuf mid farta ugu fiiqayaa 14 nooc oo haween ah kuwaasoo dabeecaddooda amaba muuqaalkooda dartiis aanu weligiis meher ku xeli doonin haddii guur la-aan iyo iyagu ay u sinmaanna uu xagga guur la-aanta xigi doono marka uu gabagan tirinaayo ma ahayn nin guurdoonehe aw yuusuf oday buu ahaa siduu isaguba ararta ku xusi doono wuxuu ku waaninaya dhammaan barbaar adeer ama awow uu ugu aadanaa iyada oo sidaas ah ayuu haddana wuxuu si gaara ugu halqabsaday laba kuwaa ka mid ah oo la kala oran jiray gurey iyo daroor malahaygana dhalaataas ama habeenkaas uu gabayga marinaayo ka agdhowaa kolkaas uu ku bilaabay arar haddiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeeddada uu sido wuxuu yidhi gurey iyo daroorow arrini way igu gamileeye wax igalayba waan uun galgalan gu-iyo jiiraale gelmidhabadka waxa igu wacan hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoonna guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiinna oo wada guntada xaajadaa odaygu soo guursay gaasgaaska waa lagu lumaa golo kafuulka ahe ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye guri bila ninkii doonayee nacaya goombaarta ee guur u jeedow maqal waan ku garansiina inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu raggu dumarka ku kala doorto haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu aw yuusufba leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo kor aan dheerayn ay u dhowdahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go-ane gaboodleyda gaashiduu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadabi wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabadh xilkas ah oo markuu soo muuqdo gobashiisa iyo gasiinkiisa oo is-ag yaalli ay diyaar yihiin wuxuu rabaa inaan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda dabadeedna inta la isu wada sheego sidkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto wuxuu rabaa haweenay karti badan leh oo howlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama casintana uu ugu maqan yahay iyadu kuwa hoose ka furata kagana filaata midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa guri joogga ah sida ariga doonka ah awrta lagu guuro ama la dhaansado nirgaha kareebka ah iyo wixii lamid ah wuxuu yidhi gambar lagu fadhiistiyo midaan gaadha fidin haynin ganuunka iyo xeerada midaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reer tolkay taan u gogol haynin een geedka laga naadinayn guuran kala aado gaargaarka awrtiiyo nirgaha geela laga reebay guri joogga xoolaha midaan goosanka u diidin een garannin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkayguba gelayn guuran kala aadab wuxuu ka digayaa goorna walba haweeneyda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan xiyaalka iyo carruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo derisyadeeda la kala hayo amaba gartooda loo fadhiyo taasina ha idin sheegto intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye talada gabyaagu wuxuu yidhi allow garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa
oo qoolka uun kula galdi iyo magaca waxay gaadho gindihii miduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goodboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig soo gelin lahayd guuran kala aado. mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan lasoo furay. carmalka iyaga ka da'da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin, lagana yaabo kii guursadaa inuuba gacanteeda ku baxo. carmalkii hortay guursatay ee geeda soo shidatay oo iga gu weynoo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogasha ii saxartirto oy ila xilgoysaaba dhowr habeen markii lala goryo gaax la kala maaro gadaal bay la soo bixi dabaro horuu ugu gaaraaye intay galab iyo aynabi lahayd guuran kala aadam. gabagabada gabaygiisa wuxuu aw yuusuf si kooban ugu qeexayaa gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwii oo soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan. waa gabadha marka ay soconayso tallaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala afjabo. dumarka oo idil markay ka foortaana gaasira magac ugu baxo. ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbaweyne wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo, raalliyo caqli badan oo aan weligii ka caraysiin. markaas buu leeyahay tallaabada midaan gow ka siin gooray soconayso oon gorobaxayn oo xarago ged isu tuuraynin een dumarka gaasirin giddigii guuran kala aado. allow gaadidii loo xisho iyo gabadha loo aayo raalliyo garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha igabsiin caawa buu yiri. waa gabay waano ah, waase waano aan toos ahayn oo culimmada naftu ay ku sheegto inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo.